labada warshadood mid waa tabiyaha safayso waxa la gooliso waa halkan sax inka saydaane aad u shaqeeynin mar ay fadhiisato alaabta ka goodo sax tanna waa tabiyaha shiinaha shiinaha noo dhisay 1974 ayuu dhisay واحدة شينا لو يدي بيشينا لا shiinaha inoo sameeyay شينا واحدة mashruucii Soomaaliya ee berigi Maxamed Saad Baraysi dalka ayaa shiinuhu inagu qaatay inaga caawiyay xagga biyaha marka ceelal xagga hoos oo geedilay ka shaqeeyo kala qoraya la yiraahdo ceelal buu soo sahamiyay dabeeto biyuhu ka helay ceelashiba halkii ma ka qoday dabeeto barkad buu ka sameeyay geed deeble meesha la yiraahdo geed deeble markaa barkadii uu ka sameeyay biyaha ku soo dhacaya beebo ku soo xirey ceelashii deynabooyin baa lagu rido lagu soo istaaray beebkii bay soo raaceen laba dhuumood buu haddana soo dhigay labadii dhuumood markuu halkan keenay baa halkan sahamiyey inuu ka dhigo xero haddana xero mashiinna la dhigo mashiinadii markaa biyaha geeddeebla ka imanaya ceelka ka soo baxaya geeddeebla soo maraya barkadan ay ku dhacayaan barkadan markay ku dhacaan haddana deynabooyin iyo bambooyin baa ku xidhan laba dhuumood baa haddana halkan magaalada u kaxaya labada markay shinnada lagu istaaro biyihii way bamgarees meelo dabkii baa qaadaya hargeysa tagana barkada kannad kaydkay ku rideen iyo taangariska oo laba barkood hargeysana markaa mashruucan waxaa la furiyey 74 labadii beebe haddaba ingiriiska dhigay iyo gidaarkan oo inoo dhisay ilaa gidaarkan deyrka weli ma dumin wixii dagaal dhacay yacni adeegga xagga xerada haddaad imka gasho waxa ku yaalla underground dhul hoose oo beebabka iyo wasakh maraan yaa saliijinta ku daadata biyaha ofaga ee ka badan intii loogu talagalay halkan meel laga sii daayo jirto lacagta laagta raacda marka waxa weeyaan mashruuc adag oo wuxuu beebkiisa weli way yaalaan ilaa inta weli way yaalaan wadka soo maray kulli wadariiqa wadka meel buu ka qaawan yahay wadka wana soo aragnay marka waxa weeyaan waxay dawladdan inta jirta Soomaaliland ku dartay oo sababta labadan dhuumoodna wuxuu ku talagalay shiinihii 10 kun oo guryo hargeysa markaa ka dhisnaa hargeysa gebigeedu 10 kun oo guryo kaliya ayay biyo ku jireen gebigeedu imikana waa adiga arkay halkay u kala kacday halkaa galbeed halkii ka gaadhay iyo bari halkii ka halay ka gaadhay galbeedna arabsiyaabay ku dhowdahay waqooyi halkan ay ku soo dhowdahayba marka xaggan aad baa soo degin meeshaan haddaan idinka warramo waa meel istiraatiiji ah weeyaan oo ciiddeedu ay tahay isku jirto carraacad iyo carramadow oo dalagyada sida sahlan uga bixi kara waxaa ka mid ah arabikada haruurka xabxabka bufradoo kale tamaandhada cambaha waxyaabahaasaa aad uga bixi karaa dadka halkan degan waa dad laba nooc isugu jira 3 nooc dad shaqaalo halkan ka shaqeeya oo shaqaalo ah iyo dad xoolo dhaqato ah iyo dad beeraley ah oo beer roobaad ku dhisan oo markay roobku doo wax beerta dadkaas ma laha dhaamam ama laha awood ay dhaamam ku xidhaan ma laha hataa xirfad tababar ma haystaan ay wax ku beeran lahayn waxay baahan aqoontooda kor loo qaado loo kobciyo waxa kaloo jira halkan dumar baa degan ma laha iskool u gaaro dumarku waaweyn non formal education wixii la odhan jiray ma laha ama waxbarashadii dadbanayn ma laha dawaarka ay ku baranayeen literacy-ga ay ku baranayeen skills-ka ay ku baranayeen kuwana ma laha haddaan ka warramo ragga dhalinyar iskuulkii ka weynaataa jirta xilligii asaasigaa ka weynaatay oon iskuul lahayn iyaguna lagu barto farsamadii dabkii leyrkii oo kale nijaaristii dhismihii oo kale wixii ma jiraan inankii markii iskuulkii ka tago xoolo inaan reerkii ka dhammaado dee waxa weyn qaadkii buu baranaya dabeete tulojoog buu iska noqonaya marka xaggan ilaa jiidanka bilow hargeysa waxay u jirtaa halkan 8 kilomitir ilaa iyo xeeb hoose waxba lagama qaban ama abaar hadday ka dhacaan dadka wax looma qaban xagga caafimaadka haddaan ka warramno ma laha MCH halkan inkastoo loo dhisay guriga cas haddana weli lama qalabayn oo dawo looma keenin dhowr sanana wuu dhisnaa